bangiga dahabshiil bank oo kamid ah bangiyada ku shaqeeya nidaamka islaamiga ee ka howlgala jamhuuriyadda Djibouti ayaa magaciisa waxa uu bedelay bangiga East Africa Bank kaas oo u adeegi doona dalalka bariga Afrika. Bangiga munaasabada lagu furaya daarta cusub ee ka dhistay jamhuuriyadda Djibouti oo noqon doonta xarunta ugu weyn ee bangigu ku leeyahay bariga Afrika ayaa waxa gudoomiyay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo weelasay marwada koobaad ee dalka Marwo Khadar Maxamuud Xayd madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle ay weelasay marwada koobaad ee dalka Marwo Khadar Maxamuud Xayd markii ay soo gaareen goobtaasi waxa ku soo dhaweeyay رئيسل وزراء جمهورية جيبوتي مدن عبد القادر كامل محمد iyo محمد سعود دعالة ملكيلها دهبشيل iyo waliba عبد الرشيد محمد سعيد agaasimaha دهبشيل جروب intaas kadibna waxa la guda galay khudbadaha goobtaasi laga jeediyay waxa ugu horeyn goobtaasi ka hadlay agaasimaha guud ee bangiga East Africa Bank Dahabshiil ee xaruntiisu ay tahay Djibouti sidoo kale waxa munaasabadaas ka hadlay wasiirka ganacsiga Xasan Xamed Ibrahim waxa isna goobta hadalka jeediyay Cabdirashiid Maxamed Saciid agaasimaha Dahabshiil Group oo ka waramay ujeedooyinka bangiga East Africa Bank وعقلوا كهذا المناسبة ده عبد الرشيد محمد سعيد دعالي ويسقوا أقسمها جود كوحدة دهبشيل جروب. إيست أفريكا بانك دهبشيل جروب عالم كردن بكشقيان جيبوتي وحيود دورتين هرمرك أي جيبوتي كقاعدة قبل هذا جيس كأفريقيا ورنتي بدء عري دولبا قيب وين كا هرمرك أدون كا مشاريع ذا وكقبلنا جيبوتي وحكم ذا حفلة ما تكليه معها إن أنا كقيب قادر كيبل كبدأ مرة دير كيبل ويسقون إلى كينيا يبدأ هوست مرة وإنترنت كوقال سنجارسين يا دمانوك الصومالي ذا يدكتور. دهبشيل إيست أفريكا بانك مرول بحوت هاي هرمرك قبل هذا سكحركة دقالها وح الله لو وحي شقاء أبورية رجية دمر با وأنا كفر أحسن دمر بدني بنك دهبشيل كشقيان قارب بدني معميل ويهين. محمد سعود دعالة ملكيلها دهبشيل أي سوقنا مناسبة كهذا اللي فري دارتا عصب. هذا حوينا وحويدي ورمد حوينو بانك قرته وانفريا بانك أنا قاله أدوك واحد قرته وامحي مركزه يقولي وحن كارهبا وقيران أفريا طمان قفاش قالا سو سمين ميس أفريا طمان كان قفاش رزق بدون يابي يقولي أنت أصلا كارهبا وير وح كارك مرحبا مركز halka waxay cadaatay madaxweynuhu inuu dadkiisa shaqo u sameeyo marka madaxweyne 14 way ka badatado waa boqolaal waanad ku guuleysatay hindisahaagii aad doonaysay inaan halkan imaado oo maal galiyo si dad shaqo abuur loo helo madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle oo gudoomiyay munaasabada qodobka looga jareeyay daarta cusub ee bangiga East Africa Bank ayaa waxa uu sheegay in uu door weyn u ka qaatay bangigan horumarinta iyo maalgelinta jamhuuriyadda Djibouti farxad iyo reyn bale maanta inuu ilaahayna joojiyo dahfurkii sartii magaalada ugu qurux badnayd meeshii ugu magac weyneyd oo sidata magacii gobonimada 27 Juun ayaa la yiraahdaa saaxadani halkan aan joogno yaa la yiraahdaa kolka wixii guriyo meesha ka dhisani kuwa kale way ka sareeyaan banalata kolkay Soomaalidu bacday dadkii badbaadiyay ayagu ku jira odaygaasi maxay yeelay dadku kolku kala go'ay oo fidhiray oo meel uu ka soo wax iska soo gaarsiiyaba waayay isaga u sameeyay meel ay masaarifta dadka loogu soo diro kolka ay joogan Australia iyo kolka ay joogan maxaan ku raahday South Africa intaba dahabshiil baa ayaa de magaciisu socday u dheeraaday Allah u barakeeyo baan leenahay Maxamed Daahir agaasimaha maalgashiga bangiga East Africa Bank ayaa ka waramay waxyaabaha ay ku soo kordhiyeen bulshada Djibouti ee la taaban karayo maanta
oo la joogo oo bankigu 9 sano jiro waddanka bartay isaga la bartay wax qabadkiisa la arkay in aan taa biirino oo aan waatan baa dhaanta lacagta halka gashay waa lacag ka badan 20 milyan oo dollar ayaa gashay iskugu jirta dhulka qalabka galay qalabka lagu adeegayo dhammaan lacag aad iyo aad oo adaga ayaa culus baa la geliyay taasina waxay ka turjumaysaa kalsoonida أو قبو حاج محمد سعيد دعالة أو ميدو كو أبوري مدحوينه محمود عثمان بلحان تي في عالمي بدع 24 جيبوتي